أبوكم زور مسيت سنبغ البان وان صبري too much وان صبري سيها خلافه وصبري محل هدون فرق هي في الآن هلو أدابا but it's not me 3 days haddaan waxay niigu waay oo wejigayga aad iga bixin weysay والله يا أخو ده من حنين نور تجلسه وجي أذي ولا أبوكر ماذا وحين دوبي نن إيجا بح أذينا وحان دوبي نن أو كودو أو يوتيوب كذا كجرو لبديني يوتيوب أبوكر مهدي جميلة مهدي إيجا بحية كلنتي وعنا ونكسن دعوة إلى الهم تيم بملك الدنيا الدافئة ذاك جوكتين أدبني سلام يا ولا شيء سجل أفتح كلام كدعونا سنة حتى أنا وسجل أفتح بريهم بوحنا كل السوق يوتيوبر ليدا وحنا كشري وحنا كل يوتيوب ليدا سووا دقن فنانين تاني أو وحنا كقول وضع عبنا يسا ضد أيوش شقينيين إنستوشنا يك شقينيين أو لعكتو دي أنتي عنانا يدتيين واللي بنا محاهد فده حدث كوجود دري اسكت دري أو وحنا كل مدح اسكت الجليين أنا لما يبني أيوة ضد كان كعبانين قرنا سالعكت اللي قعناي أو نكن إنستوشن كله أبوكر مهدي وقعناي ويدك كم يدين فادمينه يو لك حكي وعيس فرح مرتيله ريحويان واحد حوجانية الدلمي قاعد بلارن ولا جري تدك أرتيسكا الصوماليين سيد قبياجا فنانين تا هساجا ما قلبه محوها هاي إنك لو نشري باص يحس كيسة وضد بدن عيكا وضع عبانيانو إلا شريت ولا إلا ما تضاي وحسود دوبيان أنا أقول أوجه يرتو إني إنستيوشن هدي ومقارنة يسا عاد كبيرتو أو أي كوح ميلقى عاسو إن أنا الشر موياني خير أنا سعودين أضع عفمات قبا أياد كبيرة يسا كوح وحلقة متلايو أماد dadka ka soo ag muuqanaysa laakiin waxaad ka soo baxaysaa adigoo xanuunsanaya oo waxaan kugu dhigay mid caafimaad aan qabin oo uurka ka buka sababtaad uga buktaa sabab kale ma aha waxa weeyaan dadkii wala isku kindiraya qofkii institution kala ha wuxuu kugu dirayaa inta qof ay kula shaqeynaysa kan buu wax kaaga sheegay kan kale wax kaaga sheegay kan buu wax kaaga sheegay wuxuu doonaya inay dad u heshiin oo hadhow tolaadan xaqiina idinku aad leedihiin aydan weydiisanba ayuu rabaa meel kasto oo kooxi ka dhisnayn hargeysa haato caalamka anigu waxaan moodayaa hayba dad sharci haysta oo de hadii maanta wax kugu dhacana maxkamad la tiigsanayso oo de inaga horeeya anaga laakiin show arrinka waa la isla qabaabaan ku dal iyo dabadba waxaan kugu wooday saasa madax mijaal isugu celiyaa oo qof inta xaqiisa la cunaaba walibana xin iyo xasarad la isugu dirayaayo kii walaalka maanta ee aad wada socoteen madaxa lagu gelinayo biritool waxa allaala waxaad ugu calaysan tahay aanay jirinba وقفكنو كاغا دادعي wax imika kan anaga waxaan ka shaqeynayay Somali Entertainment First ka soo bilaabay inaan wax jilo ninkii iska lahaaba anaga isku kaayo diray intaan ka tir laakiin anagoon aqoon isku lahayn oo marka meesha ku wada cusub oo dadkii halkay uu soo dhaweyn lahaay walaalo ka wada dhigi lahaay oo meeshii la isaga ka masuulay maxay hayday oo dadka ka dhigi lahaa dad walaala oo isagina la wada shaqeeya hatta hadaanad qofka aad ku shaqeysanayso de xumaantiisa dadka xumaan looma saaro oo maanta adigii baa laga dhigay wasakhad laga dhigayo qof xun oo waa noocna waxaan dadkii kale laga dhaadhacsiinaya hadhow marka qofkiis ogaataan waxa soo oranaysa qofka masan baasooti lagu sheegay waa qof baayo hoogay oo dhintay sida la isugu ka diray anigu waxaan u kuur galay xataa bariga inaan soo ururiyo wixii waxay la jilaayay markaan anigu ogaaday waliba anaa kaga dambeeyo ogaaday in kasta de koox habla iga dambeeyay nama iga dambeeyay ay meesha yimaadeen hadana waxaan ogaaday markii aan anigu ka tagayay inuu isagu xun yahay oo ay sartu meesha ay ka quruntaba ay tahay isla ninkan markii aan dadkii la wada hadlay dadkii waxaba iga qaban cabsi ah ila waati xumayda sidan kugu sameeynaysa lagu caayayay ma habeen walba waxa laga sheegayay maaday habla qaar waxay gureen waxa baan isnaa baad ay faji ku dhigasaaba ma fahamtay talabaad waxa dhacday tayaxtiin baan aasnay oo anigu horeeyay qofkii aasayay oo dadkan isu keenay walaa kuwa kamaramaanada walaa kuwa jilayaasha anigu meesha isugu wada keenay oo aan doonay dad walaalaayo aan noqono magac loo muuqlo wax wada qabsada oo wax wada goosto wada jabo wada gaajoodo wada dharga laakiin maxaa ka dhacay meeshii inaan anagu ku soo shaqeynay 9 bilood bilaa lacag ku soo shaqeynay leeyahay monetize ba xayranba markii ka dambeysay ee ay dhahdeen monetize bal sidayaan dayax show aasnayna ummad badan baa meeshii timo 15 qof 15 qof waxa la mid walba wala soo diraa xafiiska anu hadaan imaado waxa la oranayay tii ila socotay saaxiibaday lillahi ilaahay bal leeyahay waxa kugu samaysay tanay kugu lahayd waxaan ka sheegay waxaan kale ka sheegay waxaan kale ka sheegay ayadii markay timaado maxaan aaminsan in lagu oranayo imika aniga qofka war ii sheegay hebel war iiga sheegaya de anigana uu iiga sheegay wuxuu leeyahay iyaduna saasay ahayd marka YouTube leedan imika hadlaysa anigu lama yaabani
xaqoodii waxaan oran lahaa waliba inta xaqina dhicsataan meel aad saartaan maanta waayo qaar jiil ka dambeeya jiro hadaan kuwii hore wax laga qabanin kuwa dambeena wadada aad marteen bay soo marayaan inta lagu shaqeysto ee lagu shaqeeyo waxaan kugu dhididkoodii la cuno qof bilaadankiisa dhididkiisa hadad cuntaana ugu xunba aad cunto horta waxba kama baqayaan dadkan xaaraan kama baqayaan wax allaah waxay ka baqayaan milaha ummadan isku dirtkooda iyo labadan afay ay leeyihiin kama baqayaan inay dambi tahay waxaan kugu god yar oo ku dambeynayaan tan laga tagayo adduunkan ay arkayaan markay arkaan lacagta yar u soo dhacda ayaaba dadkiiba leeylaawe la oranay tuurta guriga kaliga cuncidna haysaga sheegin ma faahantay waxaan leeyahay hablahan ka soo hadlaya YouTube-ta inamadan waliba Faarax Murtiyo oo xanuunsanaya oo inta xaqiisa la cunay aanu ninkaas soo eegin aanu warka doonin oo intaas oo dhan isaga u shaqeynay habeenii maalin loo ogtahay inay qurbo tahay meeshuu saa ugu shaqeynayo hablii wada shaqeynayaan waliba de habla yareerna ma aha hab dumarka waaweyn ay u shaqeynayeen walaaladii ah ee hadana maanta intuu ayaga afka soo wada galiyay waxa qoodina dajiyay waxaan ku wari aanu hadlaynay imka mana hadli karo waliin alaankan wuxuu soo gashanaya filmadii ayagu duubeen horta in ayagu kaba wada saaraan anigu waan ku qanacsanahay inay faadimina tiraahdo hal laga saaro way ka biyo xarkad waa la isla tuura markay iyada isaga u shaqeynaysay inay tagto walaashiiba may hayn labadaba inay la tiigsadaan sharciinta iyagu gamcaas qabsadaan oo aad maxay hayday gamca wada jir bay wax ku gooyaan caalamna waa la joogaayade doran lahayd idinkuna inta gamcaas qabsataan xaqiina ka dhicsada daw iska saara dub dambe yaanu u sameeynin qaar dambe oo inta ku shaqeysto dhididkooda ka dhargo hadhow madaxa isku wada galiyo ila madaxa macna kale isku galin maayo wuxuu isleeyahay yaan lagu weydiin lacag kawde marka wala hargeysadan anay maanta koox inaad iska u shaqeysato oo inta la socon kartana la socoto ma ahane laakiin inaad qof aad la walaalowdo oo aad wax isku darsataan oo team aastaan waxba ka faa'iidimeys waqtigun ba kaaga lumaaya wajiga lagaga dilaya qof xun ba laga soo qaadaya inta kula shaqeysiyo inta walaalada ah ee dad isugu xigtaan ba lagu diraya oo colaad ku qaadaysa habeenii maalin codad kugu seexanaysa qof bilaadanana horta inaad saddex habeen wax ka badan inaad caloosha wax ugu haysaabo waa xaraamba waa inaad qofkiisa ka cafidaa soo hadaad qofkii xitaa istahada cafiyo la hadalo waxaad ku taawalaalo waxaanu doonto inaad soo saarto wixii ma garanaysaa meesha yaalay sartu meesha ka qurantay inaad soo saarto cabsi bay ka qaabaan qabay ka baqanayaan waxas oranayaanba fajiilaydi xumeed weeyaan inay waxa ku dhigtay doonaysaa isaga sas ka qaba isaga sas ka qabtaa marka dadkan waxa kula talin lahaa institution ka sameysanaaya ee team abuuraya hadii aad team abuurayso oo abuur inaad ku wada shaqaysataan walaaltinimo iyo galgacal iyo wanaag laakiin ha u abuurin in aad bilaadan isku dirtad madaxa iyo mijaha isugu celiso ayaga afka isu geliso oo ayagii aan wax allaale wax ka dhixiyaan hosh is oranin ay isku leeyeen habeen maalisa isaga xaganayaan ma fahantin talaba dadka ma u sheegay dadka aniga iga dambeeya ee wax matali doono ee ku soo biiri doono doonaya inay team aasan ama sharci qofka kala qorta oo warqad sharci oo hadhowto waxaagi hadii aad ka weydo ama xumaan meesha aad ka aragto aad sharci waxaagi kaga qaadato qoro hadii kale noqotay isugu tagin hogkani waxa weeyaan hog weeyaan madow weeyaan oo naftaadana lagu dulminayo umada ilaahayna lagu dulminayo wax aad ka helaysa horta haba yaraatay ha sugin inaad u soo shaqo tagto lacag aad meesha ka hesho gurigiina uga soo baxda habeen iyo maalin adiga inuu qarash ka baxo mooyee inuu qarash ka soo galaha sugin inaad waji wanaagsan oo fiican meesha kaga tagtana haba sugin ba adoo afku inta ku leeyahay oo dad dhaansan bad tagaysa anagu dadka anigu laba yaabin hadlaaya hablahan iyo inamada soo hadlaaya sababta waa dad lagu shaqaystay oo waxaan ku leeyahay xaqooda la cunay markii dambe la dulmiyay markay ogaadeen in ay meeshan aanay waxba uga soo soconay ay hadleena loo arkay in ayagu waalan yihiin badee oo ayaga la yiri iyaga farti lagu guday oo ayaga la isku diro la yiri ninkan uu hagaagsan yahay idinka xun talaba dadka wala kala gartaa dadka qaar hoos ba wax loo siiya oo faa'iido ku qabaan oo waa dadkan u doodaya xitaaye markii aad soo maad ka sheegto wixii kaaga dhacay meesha aad sheeg runta diidan runtii inaad sheegtay ku oranayo wala nasiyo waxa sameeyaa oo faa'iido dayaw ku qabaan dadka qaarna way dulmiyeen dadka hadlaayo oo marin baa la dulmiyay oo waxaan ku xaqoodin la cunay wajigoodii la isticmaalay fadaxad yacayn halka la isla soo istaagay waxaan u sheegayaa maxay ahayd wixii iga dambeeyo ha isku dayin in aad institution inta tagto wanaag ugu tagto talabaad qof kasta oo aad u tagto oo maxay ahayd institution kasta oo aad tagto ama team kasta aad ku biirto hadii aadan sharci ka qoranin oo lacagta lagu qorayaa aanay ku cayneen oo adigu ku talagelin lacagta inaad maanta qaadanayso haba lagu caayo hal lagu xumeeyo laakiin waa inaad dhididkaagii qaatad halka kala baxda ayaad ka tagtaa
lacagtaadii haddaad og tahay maanta horta ma ogaan kartid meeshan waxa soo galo oo qofkii gacanta ku hayuunba og maxay ahayd jaranka waxa ka soo xirooda ilaahuma kumaanku ka soo xirooda ma boqol ka soo xirootaan isagunba og gacanta ku haya laakiin marka hore waa inaad sharci ku qorataa in aad ka helayso waxaaga haddaad ka weydo sharci baad kula tiigsanaysaa soo warqadii cadaynta haybad haysta marka hore kala qorateen constitution haysta baan sheegay idinkuna bili aadanka ku shaqaysanina hadii aad ku shaqaysanayso oo walaalkaaga muslimka ee danku soo biday ee ku soo biday in uu miciin ku bido oo kula shaqaysto ee wajiga wanaagsan kuugu yimi shalay ee inta qof aad u dirataba ku keena ee maalin walba ku dheemaale midci iyo duhur iyo habeen ku socda inta adigu caayaysa dabadiisa marna ka caayaysa inta u timaada ku caayayso marna xaqiisa aad cunayso ha ku shaqaysan marka hore kaliga shaqayso oo kaliga cidlada ilaahay ka buuq gas aad baan idin salaamaya asxaabtaas waxaan leeyahay farax murtiile iyo hablaha soo hadlayay garbay ku hadlayaan subscribe ta u saara u share gareeya insha Allah khayr baan isku ognahay haduu ilaahay ka dhigo channelka noo subscribe gareeyo noo share gareeyo barnaamijka soo dad badan u gaadho like tana noo saara aad baan idin salaamaya